madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa magaalada Addis Ababa waxaa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed. Ujeedka safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya. iyo sidoo kale sida labada wadan iskaga kaashanayeen dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. xogaha soo aan helayna ayaa sheegaya in dawladda Itoobiya iminka ay si weyn ugu mashquulsan tahay in ay dhexdhexaadiso madaxda ugu sarreeyay ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. sidoo kale magaalada Addis Ababa ayaa waxa la filayay in asna dhawaan uu gaaro madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro. safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay magaalada Addis Ababa ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu fashil ku soo dhamaaday wadahadaladii u dhaxeeyay madaxda ugu sarreeyay ee dawladda iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe. wadahadaladaas oo ka qabsoomay magaalada Kismaayo si kastaba ahaatee waxaa weli taagan xiisada u dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka Jubbaland iyadoo warar soo baxay maalmihii ugu dambeeyay ay sheegayeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay iminka si weyn ugu howlan tahay dhismaha maamul cusub kaas oo laga yigleelayo magaalada Garbaharre ee gobolka Gedo. hase yeeshee khubarada falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in Jubbaland cusub oo iminka laga yigleelo gobolka Gedo uu sanaayn sahlan dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay inay marto wado kale.